waxaan daba ku horeynaya qodobka koowaad ee meesha inoogu qoran waa Mooriyaan sidaynu ognahay Soomaalidu ereyga siyaasadda aad bay u adeegsataa marka ay waxa weeye arrimaha Soomaaliya ka hadlayso Mooriyaantii baa u xiistay inay wax cunto Mooriyaantii baa in dhaweyta la fadhiisii Mooriyaantii baa laga raystay Mooriyaanimadii uu doonayaa inuu dalka ku celiyo Mooriyaanimad ereyadaasi way inaga badbateen in badan bay inaga badbateen laakiin yaa adeegsada iyo yaa loo adeegsadaa waa inaynu fahanno yaa adeegsada iyo yaa loo adeegsadaa ujeedada si ku hoos jirta maxay tahay waxaad arkaysaa nin mas'uul ah oo aan weligii tuuganimo lagu sheegin oo aan weligii cid dilin oo aan weligii xitaa askari noqonin oo aan weligii isbaara lagu sheegin oo haddana lagu leeyahay ma isaga wallahi Mooriyaanimadii buu xiisay Mooriyaanimadii ayuu u xiisay wuxuu doonayaa inuu bartiina ku celiyo waa waxyaabaha isweydiin la kaashaday nin mas'uul ah oo imika ololaha culus ku jira xagga Soomaaliya koonfurteeda markaynu eegno xisbiga wadajir la yiraahdo hogaamiye ka Cabdiraxmaan Cabdishakuur la yiraahdo aynu ku baranay markii koowaad baynu wadaad ahaa ragii maxaakiimta ka shaqeyn jireen oo ka mid ah balse han siyaasadeed iyo xisbiyo iyo hogaamin dal yeeshay oo isii ka qayb qaado sida dalkaaga u samata bixin lahayd fikradan iyo waqtigan lagu jiro maanta waxa in badan hadii aad clip u leeyahay aragto iyo hadii lala doodayo iyo hadii qof siyaada fikirkiisa dhaliil ereyga kaliya uu ku dhaliila waa Mooriyaan ereyga kaliya ee uu ku dhaliila waa Mooriyaan ereyga kaliya ee uu ku dhaliila waa Mooriyaan waxaynu hadaba isdul taagaynaa bal Cabdiraxmaan ma wuxuu lahaan jiray isbaaro ma isbaaro ku taalo lahaan jiray madad uu dhacay baa la hayaa hadaba leega madad uu dhacay oo uu wax ka qaaday baa la hayaa sidee buu Mooriyaan ku noqday sidee ba eedan Mooriyaanimada loogu eedayn karaa waa qodob u baahan inaad fahanto sida loogu eedaynayo dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta hogaamiye kooxeedya soo maray hogaamiye kooxeedyadaasi tacdiye geysteen dhibaatooyin fara badan bay dadka ku sameeyeen laakiin Cabdiraxmaan kama mid ahayn hogaamiye kooxeedyadii la yaqaanay ee Soomaalida ahaa ee dadka soo dhibaateeyay mana ahayn nin ku caan baxay fikradan Mooriyaanimada ee la doonayay in lagu faafiyo see maxaa loo jeedaa isaga la caayi maayo isagana la amaani maayo waxna lagama sheegayo balse cidda loo jeedaa waa cidda iyo meesha uu ka soo jeedo hada u fiira waa cidda iyo meesha uu ka soo jeedo Cabdiraxmaan baa Mooriyaan ahaa idinku dib isugu noqda Mooriyaanimadii buu xiisay idinku dib isugu noqda hadii jeer barnaamijyada aan doonayo inaan Soomaalida horgeeyo waxaan isku dayaa inay faa'iido yeeshaan iskuma dayo anigu inaan idin xaraabeeyo ama wax kale bahaleeyo balse waxaan isku dayaa barnaamijkaygu inuu barnaamij umada ka dhaadhacaya kana iibsameeyo waxna ay ku qaadan karaan yahay dad badan oo la qalday maskaxiyan brainwash lagu sameeyay siyaasiyan lala damacsan yahay inayna jaranjarada siyaasadda ama hogaaminta weligood wax ka noqonin ayaan ku dhiirigeliyaa in siyaasadda cadawgooda uu jilayo ama uu dhigayo ay ka gudbaan fahmaana ujeedada meesha taala iyo halka ay salka ku hayso dad badan oo la kala dilay oo la kala fogeeyay oo qalad la iska aaminsiiyay ayaan had iyo jeer israadaa ugu hiili bal inay dib isugu soo noqdaan oo isfahmaan waxna meel wada dhigtaan inama waxa jiray Soomaaliya oo baraha bulshada ka hadla oo hal reer u badan oo dawladda nabad iyo nolol taageera farmaajana uu aad ugu faano oo ereyada uu ugu celceliyo marka ay ka mid ka tahay inuu inamada la hadlayo idinku Soomaalidu ma fahmaan laakiin aad buu ugu soo celceliyaa inamada inuu Soomaalida cabsiyo xafladaha oo kale markuu ka qodbadaynayo hadallada uu ku caan baxay uu yiraahdo waxa ka mid ah dalka markii ugu horeysay ayaa qiiro wadaniyeed leeda aanu abuurno markii ugu horeysay baa waxa la arkay dad qiiro wadaniyeed ku jirto oo wadankooda jecel oo u hadlaya oo u doodaya oo waxa weeyaan waa wax qabadka iyaga qayb kamid ah hada bal fiirsada waa marketing waa qayb kamid ah siyaasadda si inamada iyo dadka loo soo dirsaday hawl inay qabtaan umadu ay u dhageysato
u fahanto ula xidhiidho ugu xidhnaato ayaa marketingka noocan oo kala loo sameeyo waxaad arkayseen mas'uuliyiinta Soomaaliya ugu sarsareeya qaar kamid ah oo inama la jireentay soo garaacaan ku leh hawl fiican baad qaranka u haysaa barta ka wad waxa weeyaan wallahi waad fiican tihiin waa kan waa mas'uuliyiinta ugu sarsareeya maxay waxaasi tahay waa marketingki siyaasaddu laba qaybood buu noqday qaybi waa buunbuunin iyo ammaan qaybina waa magac dil jaranjarada la adeegsanaya waa taa laba jaranjaro oo siman ayaa waxa la doonayaa mid in hoos loo dhigo midna sare loo qaado sidee baa mid sare loogu qaadi karaa waa in la yiraahdo waa nal iminka inoo soo baxay waa in la yiraahdo Soomaaliya weligeed waxaydaan arag baa arkaysaan waa in la yiraahdo way fiican tahay waa in lagu soo celceliyo waxyaabo badan oo dadka maankooda laga gadi karo sidee hoos loogu dhigi karaa hoos waxa loogu dhigi karaa dadka in la xasuusiyo gardaamooyinkii 1900 something laga soo gudbay ee boobka ahaa ee dhaca ahaa ee balaayada ahaa ee waxa weey maamul xumada ahaa ee waxa weey qabyaalada ahaa marka waa in cid lagu shaambadeeyo oo la yiraahdo cidii waxa sameyn jirtay ayaa maantana diyaar u ah inay wixii samayso Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa hadlay waa mooryaanimadii buu xiis heerkiisa mooryaan ahaayo waa kuwii Soomaaliya kala fogeeyay sida u galayo mooryaanimadii bay doonayaan in dib loogu celiyo dalka annaguna waxaanu sidnaa iftiinkii dalku uu ku bixi lahaa ee ku bariiqi lahaa ee uu guul ku gaari lahaa adeega nothing else inta micnaha looga jeedaa waa inta meesha siyaasadda ku guda jirtaan